iyo Maxamuud Cali Maxamed si waafaqsan qodobka 105 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed aragtana in uu ku duray maxkamadda amba is-hortaagiisa oo kamid ahaa in maxkamadda gobolka Banaadir ikhtisaas u lahayn ka garnaqista dacwadan maxkamadda hortaala iyo in eedax fiiska xalaaliyaha guud ee qaranku ayna waafaqsaneen qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay jawaabta uu ka bixiyay xafiiska xalaaliyaha guud ee qaranka is-hortaag uu soo gudbiyay qaranku kaas oo sheegay in abaabulka fardimbiyeedka uu ka dhacay ka bilowday degmada Xamarweyne gobolka Banaadir sidaas darteedna ay ugu muujiyeen eedooda qodobka 45 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed abaabulka iyo isku dibaridkuna oo ka bilowday gobolka Banaadir wadada Xamarweyne wadada fi Roma markay aragtay qodobka 5aad faqradiisa koobaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed kaas oo tilmaamaya awoodda dhuleed ee maxkamadda markay aragtay sidoo kale in uu qareenka eedeysanayaasha sara ku xusan oo galay dulucda dacwada kaas oo sheegay in qodobada qaar xafiiska xalaalintu inuu ku soo eedeynay heeday laakiin laga rabo xafiiska xalaalinta qodobada sida uu soo eedeeyay eediisa inuu asoo cadeeyo dulucda dacwadana uga difaaco qodobadaas waxay diiday is-hortaaga uu soo gudbiyay qareenka waxayna aqbashay jawaab celinta uu bixiyay xafiiska xalaaliyaha guud ee qaranka sidaas oo kale waxay faraysaa maxkamadda xafiiska xalaaliyaha guud in uu galo dowrkiisa ku xusan qodobka 114 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed soo dhaw xalaali